waxaa maanta ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Ilays ee magaalada Laascaanood arday ka badan 120 arday kuwaasoo ah dufcadii 12aad ee dugsigaasi ka qalin jabiyay muddadii uu shaqaynayay. munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan haldoorka kala duwan ee gobolka Sool ayaa waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay Cabdullaahi Cabdicasiis Maxamed oo ah maamulaha dugsiga sare ee Ilays ee magaalada Laascaanood waxaana uu mahadnaqay dhammaan ardaydaasi isagoo u dardaarmay ardayda maanta Ilays ka qalin jabinaysa waa tiradeedu waa 120 arday waxaana weeye dafcadii 12aad ee ka qalin jabisay dugsigaas intii la asaasay horta ardayay waxaad ku baraarugsanataan anigu dhiirigelin lahaa inaguna adkayn lahaa waxbarashada inaad halkii ka sii wadaan oo sidii aad u dadaali jirteen iyo si ka sii fiican baad u dadaashaan oo ayna isdhigan maadaama aad muddo dheer waxbarashada soo wadeen wali meeshii la inaga reemiina gaarin waxbarashaduna ma dhamaato waa bad bilaa dekada oo meel ay ku dhamaataa aysan jirin marka horta waxbarashadii idinka waa inagu adkayn lahaa inaad ku dadaashaan oo sii wadaan kaliya wada ka wada hadlamayna waliba aad dadaal la ku dartaan hadii alla idmo oo sidii dafcadii inaga horeeyay waxaan maanta waa dafcadii 12aad marka 12kii dafcadooda inaga iga horeeyay waxaan oran karaa dad yar oo farq ku tirsan mooyaane waxbarashada way sii wadeen waxaan dhammaan hambalyo u dirayaa ardayda reer Ilays ee maanta qalin jabinaysa aniga oo nafteeda ka bilaabaya maadaama aan qalin jabiyayaasha ka mid ahay waxaan idin leeyahay hambalyo waxaad gaadheen hadaf ka mid ah hadafyadii aad lahaydeen runtii mana aha hadaf sida u weyn waxaad joogtaan jaranjaradii ugu horeysay hadeer waxaa inoo bilaamatay marka xaqiiqada dhabta laga hadlo nolosha intii ugu welwelka iyo ugu maxaan ku raadayay problemka badan marka waxa leeyahay ka baahan yahay qofka saareeyo inuu dulqaad iyo dhiiranaan iyo maxaan ku raadayay alla ka cabsi uu ku gaadho wax ka saarana waxa lagu gaadhaa oo ku fardaaminaya inaad Allah ka cabsato subhanahu wa ta'ala ayadii nugaaliya hawd marto cilmiga nagu soo habtee Ilays waxaan ku hayaa hankaaga kor u kiciyo duciyo hambaliyo wanaag Ilays waxaan ku hayaa hankaaga kor u kiciyo duciyo hambaliyo wanaag waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa iskuulka Ilays high school oo ardayda ka qalin jabisay maanta insha Allah waxaan idin rajeynayaa guul safar dheer baad soo gasheen oo muddo soo socday safarkaasina wali ma dhamaanin waxa weey uu sii socon doonaa kaliya waxaan idin kula dardaarmayaa inaad ku dadaashaan aqoontii aad ku soo dadaasheen muxuu ahaa in waalidiintiin oo intaas oo dhan idin ku soo dadaalay oo maxaa la dhihi jiray aad iyo aad waqti badan u soo galiyeen inaad soo gaartaan meesha maanta aad joogtaan inaad iyagana abaalkoodii aad dib ugu celisaan oo aad noqotaan aqoon-yahano wanaagsan oo mustaqbalka bulshada wax ka bedeli doona waxaan leeyahay arday hambalyo san aqoon-yahanada idin siinayaan xafladda la ku siinayo waxa soo wadeen 12 sano oo waxbarasho ah maanta heer fiican baad soo gaadheen marka ugu horeysa horta wayna tiraan alxamdulillah waxaad garanaysaan arday fara badan oo idila soo bilaabay oo dugsigii dhexe ama sare idinkaga hadhay nasiib baad u yeelateen maanta inaad soo gaadhaan farxadan la idinku hambalyeeynayo waalidkiin abaal badan buu idinku leeyahay intaas idin soo waday talada halkaan idinka raacinayo waxa weeyaan mar haddaad soo gaadheen level jaamacadeed oo hadda ra'iisu diyaarsan jaamacadii inaad gashaan inaad culaysyada waalidka saarnaa aad wuxuun ka qaadaan waxaad ku soo dhawaataan xafladan ay maanta qabsadeen ardada ka baxday dugsiga sare ee Ilays sanadka 2018 ardayda waxaan leeyahay waxbarashadu waxa weeye ma dhamaato jaamacad baad u gudbaysaan waalidkii idin dhalayna ha qasaaraynina wuu idinku soo tabcay maanta inaad iyaga anfacdaan baan dinayaa waliba jaamacadda nugaal oo ah hooyadii jaamacadda markuu wakiilkeedii kacay iyada waxa ka filayay inay tiraahdo 10 arday baanu siinaynaa jaamacadda maxaa ku dhahdaa ee gooli sidoo kale Ilays sidoo kale jaamacadda aan scholarship-ka ay bixinayso xafladda qalin jabinta dugsiyada sare ka sheegini ma aha scholarship baan bixiyay ma aha waa qaraabo kil waxaan rabaa ardayda inaan ugu bishaareeyo dugsiga sare ee Ilays maanta ka qalin jabinaysa hadii aan la idmo jaamacadda sahal way idin soo dhaweynaysaa hadii aad si wada jir ugu timaadaan imtixaan testi ayaan ka qaadanaa insha Allah waxaan idin ballan qaadayaa 3 arday oo scholarship marka fursadaas insha Allah ka faa'iideysa aad u maasantiin inaanu mar labaad iyo saddexaad buu hambalyeeyno dufcadii 12aad ee Ilays
waanu leenahay waa mahadsantihiin hambalyo guud ahaan idinkoo isku duuban deegaanka baan sii xoojinayaa qolada reer Ilays waxaan u sheegayaa maadaama aan xafladda u soo xidhayo hadalka intii ugu dambeysay aan qaatay in aynu ka wada shaqeyno horumarka bulshada iyo sidii aanu aqoonteena aynu wax ugu qaban lahayn adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida